dadku maskaxdu way liin baxdaa bini'aadmigu marka dadkeena had iyo jeer waxa loo baahan yahay waqti dheer ayaa waxa loo soo sheegayay waxaan xaqiiq ahayn baa la isku soo qiimeynayay shirar baa la soo qabanayay nidaamyo socday marka dadkii in dib loo yabyabo waxay noqonaysaa inaad la soo bilowdo dhowr iyo 20 sano qaab dhaqanku nooc mu ahaa marka had iyo jeer dadkeena dhibaatada jirta ugu weyn waxa weeyaan laba fikir baa isaya ama laba nin baan dhahno nin le maxaynu haynaa iyo nin kale oo la maxay inaga maqan garawsha la'aanta labada dhex maraysa ayaa had iyo jeer wadankeena challenge ka oo dhibka marka inaan la isu garaabin maxaa keenaya nidaamkii loogu tala galay baa ahaa dadku inay isku mashquulaan oo ma taqaanaa wax macquul ah imika marka arrin macquul ah aad soo bandhigto tusaale dhib yar hadaan ku siiyo aroor walba dadka marka la shirinayo waxaan macquul ahayn baa laga doonayay imika boorta kaara marda haddii dadka inta la shiriyo la yiraahdo ninka ciidanka haysto yiraahdo waa inaad galabta keentaan dadku ma oranayaan boorta kaara marda ma keeni karno xilli maanu keenaa galabta 9 keena way 9 kan isu nimaadno baa la dhihi 9 marka la isu yimaado haddana waxa la dhihi oon away boorta awayde maxaad u keeni weydeen dadku haddana way cudur daaranuno waxay dhahayaan dadkii baa naga kala maqnaa beerihii waxba lagu kala maqnaa shaqooyin iyo waxyaabo bari subax haduu lahayd 2 subaxnimo ayaanu buurta keenaynaa marka nidaamku waxa weeyaan kan dadka u bandhigaya ee buurta kaaramarda halkan keena lana uu garanaya inaan buurta kaaramarda la keeni karin kuwan laftooduna way garanayaanoo laakiin ma oran karaan xaqiiqdii baa maqan marka had iyo jeer dadku inay isu garaabin waxa kalifaya iyadoo walaalka la dilayo oo dhib socdo ayadoo oranaysa waa la barwaaqaysan yahay marka dhibku wuxuu ka jiraa waxa la sameeyay dad gacan ku samaysa maskaxda lafteedu marka xumaanuna ay ku soo noqnoqoto aroor walba way iska limbaxaysa hadeena iimaan qawi alahayn simple example hadda adigoo Umara hadii lagugu tuuro China adigoo sujuudu sida kuugu taalo oo iimaankaagu sida qanjaa u joogo hadii China inta lagugu tuuro uun aroor walba one side information lagu sheego oo diinta islaamku waa sidan waa maxay waa kan lagu yiraahdo marka dambe inaad dadka jiirka cunaya ka qayb gasho oo iska cawaanka ah waxba kuuma noqonayso waayo waa lagu hafinaya marka dadkeeni waxay noqotay inay liin baxaan oo maskaxdooda iska liin baxdo labada fikir challenge-ga u dhaxeeya hadaba ilaa inta garawsho la helayo waxa loo baahan yahay oo laga gudbi karaa qofka mas'uulka ah dawladnimadu kama dhigna in 100% wax walba qofku uu qaban karo dawladdu qorshe ku shaqeysaa marka qorshaha dawliga ah waxa loo baahan yahay qorshaha la sameeyay sanadkan maxaa ka qabsoomay wixii ka qabsoomay in ayar la qiimeeyo kadibna la yiraahdo waxa noocaasina inuu ma qabsoomin muxuu inuu qabsoom waayay ceeb ma aha duruuf dhaqaale la'aan xaalado kale marka qofkii kalsoonida noocaas oo hadli lahaa baan meeshii jirin marka adigoo biyo la'aana oo dameer halkan kugu jiro waa in la yiraahdo wadanku barwaaqaysan yahay adoon caafimaad haynin waa in la yiraahdo oo ma taqaanaa isbitaalka inta tagtay adeeg soo waayay hadda tiraahdo adeegii caafimaadka waan soo waayay khatar dawladii wax ka sheegaya waa lagu la boodayba hadda tiraahdo dawladii hoosaan tagay mustawa qaan u baahnaa xujad guri baan u baahnaa sharci baan u baahnaa meesha adeeg kama jiro qofkii ku garaabi lahaa oo ku wanjalaya waa lagu la kacaya waxa way marka dawladda nidaamkeedii maadaama yahay nidaam gumaysi ah ayuu wuxuu noqday lama taabtaan marka ilaa hadda dhibka ina haysta wax walba lama taabtaankii un biinoo yahay meel wax laga sheegi kara ma jiro waxa lagu oranayaa ma taqaanaa hadii marka wax wanaag aad ka hadasho ama dhaliil aad soo jeediso propaganda wax leeyahay hadda tiraa warno biilaan baan haysa ama leedkii baan naga tagay hadda dhibaatada leedka ka jirta waa aragtay biilaanta ka jirta waa aragtay dhibaatada ka jirta waa aragtay wax mas'uulaha intuu TV-ga soo fadhiista qiranaya ma aragtay ma jiro mas'uulka laftiisu inuu dhibkan qirto ma kari karo wuxuu arkay isaga laftiisu inuu dawladii caayay oo kaliya wuxuuna mas'uulku karaynin in dhibaatadan uu yiraahdo waxa sanadka noo qorshaysnaa waxaana waan qaban kari weynay shacabkii kolka raaliba ka noqonayaan biyo la'aanta iyo dhibka jirta iyo caafimaad darrada waxbarashada dugsiga dhibaatooyinka noocaas in laga garaabo musuqa in laga garaabo wax walba in laga garaabo waa kalsooni darro qofkiiba wuxuu arkaa
in kursigiisa ay dhibaato ku tahay hadduu dhibaatadii ka garaaba shacabka haysatay marka waxa weeyaan still nidaamkii TPLF-ta ee ahay un had iyo jeerba in qofka shacabka uu noqdo qofka gardaran qofka kursiga ku fadhiyana uu noqdo qofka saxsan had iyo jeer deegaankeena waxa saxsan un qofka kursiga ku fadhiya ilaa inta qofka kursiga ku fadhiyo uu yahay qofka saxsanna waxba lama hagaajin karo qofka kursiga ku fadhiya hadduu khaldan yahay waa in la odhan karo waad khaldan tahay waa in lala xisaabtami karo waa in runta loo sheegi karo isaga laftiisu waa inuu qaadan karo loo abdiilay wuxuu ahaa nin dictator warkiisu cad yahay ملسنا وحنا هن دكتاتر TPLF دكتاتر أهيد وركود وعدا إنه وحلايان بعدد إنه ديك عبان بعدد عبدي له إنه كرسي يسكون نهرايا أنتو دتك كركا كجرا ميدو ودي الجرابة عاد بأهيد كرسي جنوب حكوت شوجا ونتاون بأهيد استيل ما أنتنا هي دي الضبان بأشرتون كرسي جمان أنتنا قف واحد دونا إنه كفر دياون إنه هذانا مرتم به بورتا كارا مردا مكاني كرنو أنا لو فينت جماعة اللي قلقلينا هذانا بحذي قري قاعدتهم بهذانا الرباع إن هذانا بورتا لغو فرديون مركا دباتة شرتا كرسي جام مدو دباتة كبادان وديجان كشرتا ما قرناي أنا جو تينا نود عين إن أنت الحولا كقلنا أما نمان كان ده كهنة ده أنت الله تجو كل هدي كهنة ده الله تجو اللي راول بحكي شيء كرسي جان waxay noo diri doonaan assignment-ayna ka bixin karin oo neef dharan oo inaan heli karin oo qaali ah oo inaan iyaweyno kullu waxay ku sheegi doonaan laakiin dhibaato ka weyn maanta deegaankeena kursiga madow ee dhibaatada la madoobaadi still qof kasta oo ku fadhiya midab kale intuu yeelanayo qofku kursiga markuu fadhiyo intuu noqonayo qof kale oo nooc kale ah bili aadmiga waxaan ku naqaanaa waa saddex midabun qofku ama waa casiin ama waa madow ama waa maarin wax inta ka badan oo kala midabna ma naqaano qof bilaadmi maanta waxa arkaysaa kala buluug iska yeelanaya soo ku garab socdo oo midab kala noqonaya ku waxa arkaysaa isagoo ku garab socdo intuu ku dilo qof kala loo qabsanayo oo nooc kala noqonaya marka dhibaatada ugu weyn waa dhibaatada ka jirta kursigan hadii abdi ilay dabadii wixii loo soo dagaalamayay wuxuu ahaa in la isu garaabo in xumaanta laga baydo in deegaanka dhiigga laga joojiyo dhiigii uu joogsaday laakiin haddana kursiga madow baa bilaabayo haddana muxuu bilaabayaa danihiisa iyo maslaxadiisa gaarka hadii shalay nin jahilnimo ku caayisay dhiigga dadka inuu cabayaan caabaysay dadka inuu kala qaybinayo oo reer u kala farayo kala fandiceliyo aad ku caayisay still maantana waad wadaa kursigii madow baa dhibkii wada haddana weligeedba meesha khiyaaliga jira weligeedba ma taqaanaa wadanka ma fiiqa la qaata iyo jaakada la xidhaa wadanka lagu xukumi kara khiyaalun baa lagu jira wadanka isku wada burburaya ma fiiqaha iyo waxyaabaha ma taqaanaa kolba kharash la gelinayo ayaa dadkan ceel u qodi lahaaba wadankii oo dhinac walba ka gubanaya baa la oranayaa hal xaare magaalada ma fiiqa dadka loo dhiibaya ma fiiqa wadanka lagu hogaamin kara marka waxay la tahay wadanka mas'uuliyiinta joogta in iyaguna arrintaas u sheegaan dhexdooda xisbi macnihiisu waxa weeyaan xisbigu war nidaamkii BRDF-ta hore ha xumaado laakiin iyaga dhexdooda siyaasadooda say u laashadaan oo hirgeliyaan dad isla halgamay ahaayeen xisbi ahaan bay isu qiimeyn jireen hadda war xisbi ahaan wax isu qiimeynaya ma jiro qurba joog ahaan la isma qiimeynayo siraaj ahaan wax la isu qiimeynayo ma jiro muwaadinimo wax isu qiimeynaya ma jiro nooc la isu qiimeynaya ma jirto ma fiiqaha un baa la wada haystaan ma aroor baa la dhir baa la beeri dhirta maxaa lagu beeri loojiga maalintii dhirta la beerayay baan ku warday biyihii ka horeeyay gidibkaaba goray maxaynu ka beeraynaa waa lagu qabsani marka hadaa tiraahdo waqtiga aynu ku kharash garaynayno waqtigii magaalooyinka la xusayay xafadahan oo dhan dhir baa la qodqotamiyay khiyaaliga meesha jira milyan lacag lagu bixi waxaan ku orino I don't think waxaan wax sustainable ma noqonayo khiyaaliga naga daayo waxaan ku geedahan yarar intaas oo milyan laga keenaya aadami iyo maxaan ku dhahdaa meesha la oran jiray Dabrazayt intaas oo ay soo dabagalayaan war dadka ceel ugu qoda because geedahan lama joogtayn doono in maanta inta la qoqotamiye laga tago oo qalalaan micna ma sameynayso war miisaaniyada dadka loo daayo waa lagu qabsan waxa la waranayaa hebel wuxuu ka soo horjeeda dawladnimadii siyaasadii ka soo horjeeda dawa kuwaas ma ka soo horjeedna balimka guriga kuwa lagu qoqotamiye xaafadan balag iyo xaafadan kale iyo kuwaas waa ku wada qalalay gidibka kuwa lagu waxay wada qalalaan isagoo gidibkii guray oo inay biyo ku jirin yaa garabkiisa lagu yaaco dhir lagu beerayay hadaa tiraahdo war waqtiga aan gelinayno wax kale ma kaga faa'iideysano xoog aan gelin waqti ma kaga faa'iideysano kharashka aan gelin wax kale ma kaga faa'iideysano waa lagu qabsan because waxa looga dan leeyahay sawirada maanta la gelayo
ma wadan dhan waxaad aragtay billions in maanta sawir la gala lagu khashaarinayo billions maanta in la isu yimaado oo shirar la duubo waxaad aragtay mas'uuliyiin wadankii oo ooman oo rafaadsan halkan xaflada ku qabsanaya oo Facebook isa soo dhigaya dadkii wada gaajaysan wada rafaadsan tamirka noocana ayaa loo baahan yahay isbedelku wuxuu ka bilaabanayaa tamirka noocana in la dagaalamo mas'uul u arkay wax la boobay in sharaf tahay mas'uul u arkay inuu qabyaaladeeyo in sharaf tahay mas'uul u arka in la amaano oo wuxuuna qaban lagu amaano in sharaf tahay mas'uul maanta kharash garaynaya billion oo reerkiisa iyo wax gaarisa iyo wixiisa mas'uul waxaad arkaysaa gurigiisa 4-3 gaar ay taagan tahay oo xaafadiisa ay qaar ma taqaanaa salada ay saaranayso qaar caruurtiisa iskuulka geynaya waa gaadiidka loogu tala galay inuu dadka adeeg u bixiyo gaadiidka loogu tala galay weeyaan mas'uulka noocaas marka ummad muu bedeli kara kii noocaas haba ku hor socda mas'uul la iibsan kara gabigiisaba oo la gadan karo oo maanta deegaanka saxixi kara in la wareego mas'uul ma ku noqon kara dadka la doonaya still in la inoo carbiyo waa dadka noocaas waayo waxaad ku garan kartaa ififaalooyinka maanta jira ee kursiga xun ee madow ka socda ififaalooyinkiisa iyo hadallada ka soo baxaya markaad qiimayso still midabkiisa caadiga ah la soo baxay kursiga madow dhibaato ka badan oo deegaanka ka jirta ma jirto marka anigu ilaa inta laba nin ay isu garaabayso ee iyagoo wada fadhiyo runta isu sheegaya ninka la maxaynu haynaa waa in laga garaabo markuu yiraahdo oo biyalaan bay haysa dhib baa jira shaqo ma hayo waa in laga garaabo laakiin intuu kan dharagsani oo ku oranay wariya waad khaldan tahay seed saa oran kartaa waxa weyn ma been baa la isku qulaamin isbedelkan doonina wuxuu ahaa inaan been la isku qulaaminin sidoo kale qofkan kale dawladda laftiisana wax uu qaban karin in laga doonin aqliga logic anagu aan rabno 50-50 in loo wada socdo inuu kaasina ka garaawirino waa runta geelaan baa ku haysa caafimaad darra ku haysa iskuulaan baa ku haysa shaqalaan baa ku haysa waa runta hebel maanta shaqaalaynay cidaasan saa u qabanay waan ku soo gaari doonaa waan ka garaabaynaa qofkii markaa uu qancaya laakiin haddaad u garaabi weydo nin xafadiisa bilaabil tahay oo bilaa shaqa yaad oranaysaa propaganda ku jirta maxay isbedelay marka xagu propaganda kaga jira warninka ama shaqaalaysi ama jabada gacanta u gali marka dhibka jira labada qof challenge-ga dhex jira ayaa maanta bulshadiina yaala marka ugu dambeyn waxa weeyaan mawduucan saan isaga soo gabagabayno isbedelka dadku maadaama aad u daneynayeen aad u soo rafaadeen ay aad u hanqaltaageen muddo yar buu isbedelka ku khashifmay inuu khashifmo waxa keenaya nidaamyada aan ka sii sheekeynay bal imika u fiirso qof kasta oo ma taqaanaa wuxuun dadnimo lahaa meesha waa laga saaray waxaad moodaysaa in nidaamkii cabdiile oo kale qofka inta la dhadhamiyo in la yiraahdo alle hebel waa nin wax yar qaban kara ama waa nin dadku ay ma taqaanaa wax ka maqal karaan wax noocaas barometer inta la samaystay criteria noocaas ayaa waxa isu soo haray markaa dad xaaba ah systemka dadka maanta ku jira anu de gebigaba waata dadka systemka ku jira anu gabigooda waxaan kalsooni ka qabashan baa ku jirta dadka maanta systemka in hor socdo oo kale oo dhan la wala dad meel inoo rari kara ma marka waxa kalifaya in dadku isu garaabaan baa muhiim ah isbedelku sidii la rabay maadaamuna noqonin maadaamuna dadka sidii la rabay u soconin dadku way ka moral jabeen maanta wax niyadu haye ma arkaysid marka waxa loo baahan yahay xitaa even war qof xitaa hadalku u qancin kara ma jiro haddaad imika qof wax weydiiso master systemka ku jira oo tarool basay wax u socdaan hal erabe ka midaysan yihiin oo maadaama ku qancin kareynin taa iska daaniga koogunba ku dhigay maxaad ogtahay waayahay waxa noo muuqda iyo xaalado badan iyo waa kan waa sidan bal noo warano say wax u jiraan haddaad tiraa oo de waajibaad muwaadinimaan ku saaran waa in wadankaaga la socoto hal shakhsi oo laba eri ku sheegi kara ma jiro because qof wax kugu dhaamaaba ma jira maanta deegaanka nin kaana marna waxa ka dambeeyo ku sheegi kara ma jiro waxay kugu soo duuduubin arinta waa say aniga koogun baa lagu wada dhaafayaa iyo way saarantahay iyo waa dhagdhag iyo ereyo noocaas dadka wax uma tari karaan marka isbedelka waxa loo baahan yahay inuu nidaamka hore ka duwanaado oo la isu garaabo qofka le maxaynu haynaa
inaadan ku dhiin maxay naga maqan wax badan baa inaga maqan waxa ma hayno haddii adigu aad shaqayso gaari yarna aad saaran tahay annagu in adigu aad shaqayso oo gaari yar saaran tahay isbedelkan wixii loo rabay ma aha dadku damiir bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin qofku aroortii wuxuu ku farxo u baahan yahay wuxuu ku farxaya ma aha marka adiga gaarigaaga iyo shaqadaadii dar mawduucana saasan ku soo gabagabeynayna